السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني حول في الله وأحمد درس عسو درسين إن شاء الله ما نحن سكوينا ومحن شرحنا ومحاي فيروس وعشان إن بدل السويدية قفل السويدية ومحاي فيروس محاكمة فيروس صوح كان ومحاي يصدق كمبيوتر كي يقصو قالي قار أهان تقصو يبصدو لابتوب عسو أو كمبيوتر عسو بحي سويدية محان سو يبصدو عن فيروس محاو في عن كمبيوتر كي يسكي دفاع كلا إنت أصلا سوا أصلا أوكينا بقيت لغا بقايا فيروس كب أما عفسي لغا عفسنا فيروس كب. اوكي marka su'aasha ugu horeysa waa maxay virus su'aal aad u muhiim ah waa maxay virus waa program aad u yar loo sameeyo in computerka laga kharibo ama computerka dib ay u keensado waxa uu jeedno waxa kamid ah in computerka culays laga dhigo computerka in information laga hado computerka in hardwarekiisa laga haleeyo marka iyo information kale aad u sii badan virus sidoo kale waa program iskoobi gareeyo hadoo maanta computerkaada virus kale oo hal feel ku dhaco wuxuu isku dayaa viruska inuu feelalka dhan isku koobi gareeyo ilaa computerka ka qabsado sidoo kale viruska waa program oo computerka kale u gudbo dhinaca USB-ga ama dhinaca cajalada ama dhinaca sidoo kale internetka uu kala gudbi karaa marka sabab loo sameeyana waa kala duwan tahay qof walba wuxuu sameeyaa qof ajar dhalinyaro u sameeyaa baashal ahaan oo inuu ku tusiyo xoogiisa inuu wax uu sameyn karo sidoo ajar u sameeyaa siyaasad ahaan dad ajar u sameeyo lacag taraadeeda marka qof walba soo sameeyo waa kala duwan tahay marka mid labaad aniga sideen ku ogaadaa computerkayga inuu virus ku jiro sideen ku ogaadaa inuu computerkayga virus ku jiro hadaa dareento inuu computerka culusaado sidoo kale hadaa dareento inuu computerkaada marka adiga website furtid oo website scan saro ama website ka furtid mid kale ku sii gudbiyo in badan waxaad dareemaysaa inay kamid tahay calaamadooyinka viruska sidoo kale program isticmaali jirta haduu ku shaqeynaynin ama program scan saro ama message ku soo baxay oo qoranta error ama khalad ayaa dhacay ama waxa dhacay ama failal ku shaqeynaynin waxa dareemaysaa intaas dhan calaamadooyinka virus inay tahay calaamadooyinka ugu muhiimsan waa hadda kugu jiro computerka antiviruska la istaajiyo ama uu istaago waxa dareemaysaa inuu viruska istaajiyay marka mid saddexaad waa maxay dhibka aniga uu ii keenayo viruska ama computerka dhibka uu keenayo waa maxay dhibka uu keenayo mid ugu horeyso waa ama dadka waxay aaminsan yihiin in badana inuu adiga viruska dhinaca software kaliya dib ay u keeno taas waa qalad computer viruska wuxuu keeni karaa dhinaca hardware dib u keeni karaa dhinaca software dib u keeni karaa marka dhahay software waxa uu jeedaa adiga dhinaca oo programada iyo waxa uu jeedaa dhinaca hardware waa qalabka ku jiro computerka oo ku kooban yahay ayaa hardware u jeedaa marka sastradeeda dhinaca hardware waxa marka dhahay dib u keeni karaa virus jiro oo kaliya loogu talagalay inuu hardware-kaada kharibo marka haduu hardware-kaada galo waxa ay kartaa inuu computerka dhan xirka u diro oo computerka ka dabiin marka ku shaqeynaynin virusna oo sidaas waa jirta marka aniga sideen iskaga difaaca su'aasha aad muhiim ah aniga sideen iskaga difaaca adiga sideen iskaga difaacayso waxa u baahan tahay antivirus oo xoog leh iyo ina adiga computerkaada ilaashatid inuu khaladka kama imaado virus kama soo dego ma aha virus computer wax ku koray ma aha viruska waa program adiga u ogolaatay inuu computerkaada soo galo qalada adiga sameysay qaladaha sameys kamid ah inaa website furtay website-kaas kuma kalsoonid laakiin program aad soo download gareysay website aad furtay kuma kalsoonid laakiin sawir aad soo download gareysay ama wax soo download gareysay oo virus wato marka oo soo laabano waxa u baahan tahay antivirus oo xoog leh antivirus xoog leh oo jeeda antivirus asli ah antivirus maanta ma aha mid oo lagu dhahay free antivirus soo download gareyso soo download gareysay kaasi ma aha antivirus oo asli ah ama antivirus oo xoog leh marka soo download gareyso antivirus waxa sameynaysaa computerka baaraysaa computerka hadaad baartid oo computerkan aa ogaatid inuu nadiif yahay wax ku jirin waxay ogaanaysaa markaas inuu adiga oo computerkaada dhibka heelin ama dhibkugu jirin oo virus ah sidoo kale virus jiro antivirus soo qaban karin marka hadaan ku dhahay dhibkugu jiro marka waxa ogaanaysaa adiga inuu okay computerka waa nadiif laakiin waxa jiro virus jiro oo antivirus soo qaban karin marka hadaa adiga ka shakaysid inuu computerkaada viruskaaga jiro oo in badan dhibka dareed computerka inuu adiga xajmiga isticmaalaysa inuu ka yaraaday speedka isticmaalaysa inuu ka yaraaday adigoo barnaamij cusub degsanin oo meeshii weli faaruq ay tahay oo wax badan ku shubin haduu virus adiga uga shakaysid mid ugu fiican waa inaad computerkaada formatting garaysid marka insha Allah darsi ajiro ka soo sharxi doonaa ama darsi adiga insha Allah mustaqbalka aan sharxayno sidee formatting u sameynaysaa iyo sidoo kale sidee u kala ogaanaysaa antivirus fiican oo la soo iibsado iyo antivirus ajiro oo free ah laakiin lagu kalsoon yahay website-yada oo laga soo download gareeyo marka okay qodobkeena afraad ama shanaad midaan u socono hadda sidee
adiga iskaga ilaalinaysaa feelalka aad soo download gareynaysid marka ama feelalka ayuu ku qarsoon yahay waa maxay viruska feelalka badan ayuu qarsoon yahay waa exe mid ugu dambeyso oo programmada kamid ama markaa dhigaysa scabi punct waxa dhibic waxa ugu dambeyso exe marka adiga intaan sabab ku soo baxayo inta magac u dambeyso waxa ogaanaysaa in ay virus ku qarsoon karaan marka intaan programka soo download gareysid waxa iska ilaalinaysaa in computerkaada waxa isku dayaysaa in computerkaada aad controlshid sidoo kale weligaa soo download gareynin program ka yar 1 megabyte waa MB mid ka yar inaad soo download gareysid iska ilaali batatan ilaa haddaad ku kalsoon tahay website-ka adiga kasoo download gareynaysid programkaas marka hadda adiga kalsoon website kasoo download gareysid programkaas oo iska soo dejisay hadduu yahay 2 kilobyte ama kasii yar waxa ogaanaysaa inuu wuxuu noqon karaa inuu yahay virus marka waxaan u dhahay adiga u fasaxday waa taas camal in aad soo download gareysid ay program oo aad ku kalsooneen sidoo kale virus waxaa jira malaayiin maalin walba waxaa soo baxo virus cusub ma aha laakiin viruska laga baqo viruska waa aad ay ku fudud iska ilaaliyo waxaa dhici karta maanta inaad computerkaada 5 sano isticmaalaysay ama 2 sano isticmaalaysay 3 sano isticmaalaysay adigoo antivirus weligaad isticmaal computerkan wax ka gaarin sabaha ugu horeyso waxaa control shakili programas oo download galinaysid waxaa control website-da galaysid waxaa control sawirada ku soo galay waxaa control USB ama flashka ama cajalad computer la gelinayo asal control ma nadiifa waxa ku jira virus bay wadata intaas hadda control waxa ogaanaysaa boqolkiiba inuu computerkaada virus usoo dhawaanayna ama virus is arkeenin marka insha Allah waxaan jeclahay intaan aan soo koobay intaan sharaxan aad u soo koobay waa maxay virus nada sharxismada virus aan kala saarno waxay qaadan kartaa cashirooyin aad u badan marka insha Allah in la fahmo aan jeclahay inta aan soo koobay virus wuxuu yahay iyo sida iskaga difaaco viruska sidaan ku sheegay virus adiga ayaa iska celin karo waxaan iska celin kartaa in aad controlshid feelasha aad soo degsanaysid ma aha ay feel laakiin virus wado ama computerka horumarka culusaado ma aha maanta virus wado computerkayga uu halaabay laakiin waxaa dhici karta maanta inuu computerkaada virus wado inuu dad badan ayaa jira hadda gaar ahaan anaga Soomaalida inuu computer ku culusaado kali ama feel ku istaago ku dhaw automatic virus ayaa computerkayga soo galay marka virus ma ahan ay program istaago virus kuma jiro marka adiga waxa laga doonaa inaad computerka kali controlshid marka cashirkeena ama sharxeen maanta meesha aan u aqaaday waa inuu cashir dambe hanna ilowina like subscribe iyo share hada ku waraysa cashirada hore ku soo dhaaf aadaawanin waa daawan kartaa linkaan ku dhufanaysaa kor ku dhufanaysaa ama hoos ay aadaysaa Somali Professional mowqacay aad u aad kartaa sidoo kale hada su'aal qad xog soo qortaa meesha commentiga aad soo weydiin kartaa insha Allah inaan soo jawaab isku daya waa walaalkii Ahmed wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kadib xaneena hidden kadib okay waxa arkaysaa inuu failkii isqariyay sidoo kale markaan sawirka qarinayno waxaan tageynaa meesha ugu hooseyso okay aan ku dhufanaynaa